markaad soo gasho internetka waxaad furtaa aaladaha kala gedisan ee wax laga raadiyo sida Facebook, YouTube, Instagram ama Google iyo wixii la mid ah. hase ahaat weli ma isweydiisay inuu jiro internet madow oo kan aan adeegsano aan ahayn kan aynu naqaan ee aynu adeegsano ka bulsho Soomaali ahaan ee aynu soo gaadhay una adeegsano hawlaheena maalinlaha ah ee kala gedisan kala duwan ama midba ujeed gaar ah iyo danteena aynu ku fushano una adeegsano hawlaha ganacsiga sida waxyaabaha online-ka lagu iibsado iyo hawlaha ballaaran ee kala gedisan. shabakada mugdiga sidee loo gali karaa? shabakada mugdiga waxay hoy u tahay shabakada qarsoon adeegyada iyo alaabooyinka qaar aan waxba galabsan iyo qaar wax galabsaday ama qaar saxan sida caadiga ah internet deep web surface web waa ka aynu isticmaalno ka bulsho Soomaali ahaan ee hawlaheena maalinlaha aynu ku gudano. deep web ama dark web oo af Soomaali ahaan noqonaya internetka madow ama internetka. shabakada mugdigi waa qayb kamid ah internetka oo ka kooban goobo qarsoon oo aanad ka heli karin matoorada raadinta ee caadiga ah. si aad u gasho internetka madow waxaad u baahan tahay browser qarsoodi ah oo la yiraahdo Tor. internetka madow horta waqtigii ugu horeysay ee la ikhtiraacay ama la adeegsaday ee halabuurkiisu yimiday 90-maadkii bay ahayd oo waxa ikhtiraacay ciidamada badda si ay xogaha ugu wadaagaan macluumaadkoogana ay iskugu dhaafaraha ka baxday markii ay fureen ee ay bulshada iyo dadkii caadiga ahaa u sii daayeen inay adeegsadaan browserka Tor ee ciidamada Mareykanku ay sameeyeen waqtiga. waa browser qarsoodi ah oo tirtiraya raadraaca iyo dabagal in lagu sameeyo qofkaasi xiriirka uu sameeyay. noodarka kala duwan ee baahsan iyo matoorada raadinta gaarka ah. shabakada mareegaha madow waxay isticmaalaan software sir ah buuqdayaashooda iyo mulkiilayaashoodu oo ahaadaan kuwo ammaan ah oo aan tixraacooga iyo hawlaha ay faraha kula jiraan loo arag. malaayiin isticmaalayaal firfircoon ah ayaa si maalinle ah u adeegsada. maalin kasta qaar badan oo kamid ah isticmaalayaasha shabakadan ayaa si sharci ah ugu xidhma. maxaad ka heli kartaa shabakadan mugdiga ah ee dhexdeeda ka jira? shabakadan waxaa loo isticmaalaa in lagu martigeliyo goobo bixiyayaal alaabo iyo adeegyo fara badan kuwaas oo qaarkood sharci yihiin halka qaarka kalena sharci darro yihiin. waxaana ka mid ah alaabaha iyo adeegyada lagu iibiyo meeshani ama dhexdeeda aad ka helayso daawooyinka, hubka, xogta la soo xaday, lacagta been abuurka ah, aqoonsi iyo baasaboorro been abuur ah, qalab jabsiga ama hackeriska, lambarada social security-ga ee la soo xaday, shay kasta oo faldambiyeed ah oo xun oo qof bilaaadami samayn karo ama niyadiisa ku soo dhacaysa oo uu heli karo ayuu halkan ka dhaxilaya. sida maandooriyaha, sida kooxaha ka ganacsada daraagiska ama maandooriyaha, kooxa ka ganacsada hubka sharci darrada ah, daawooyinka, xubnaha dadka bini'aadamka ah, taleefano ama lambaro aan tixraac lahayn iyo meel loogu hagaago. halka waxyaabaha aad ka dhaxelayso ay yihiin qaarkoodna kuwo caadi ah ama sidan internetkan kaleba aan u adeegsano ee maalinlaha aynu ugu gudbino fariimahan waxyaabahan bulshada dhexdeeda ka caadiga ah ee aan dhibaatada ahayn. waxaana ka alaabooyinka la ururiyo, alaabaha farsamada, alaabta fayaqabka golayaasha siyaasadda, goobaha wararka, boodhadhka fariimaha ee kuwa sirta ah iyo saxafiyiinta kaasoo aad ka heli karto browserkaaga caadiga oo aan u baahnayn aqoonsiga galitaanka mareegaha qotada dheer. laakiin webkani waxay u baahan yihiin soogal ama rukun qoto dheer loo galo ama aad qayb uga noqoto shabakadan mugdiga ah. iyada shabakada madow iyo mareegaha qotada dheer ayaa inta badan loo adeegsadaa si isku bedel ah laakiin isku mid ma aha marka loo eego
laakiin isku mid maaha marka loo eego qiyaasaha shabakadda. qiyaasaha qaar shabakadani waxa ay ka kooban tahay internetka qiyaasaha qaar shabakadani waxa ay ka kooban tahay 90% internetka. haddaba daawade haddii uu ku qanciyay muuqaalku oo aad inuu macluumaad ama xog ka faa'iiday sheer garee oo nagu soo biir.